kulanti wanaagsan mar kale daawadayaal waxaan maanta u qalab qaadanay inaan wax ka ogaano xaaladda dhalinyarada darbijiifka ah ee ay duruufaha waayuhu ku dul joogaan darbiyada caasimadda dalka ee Muqdisho. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. daawadayaal sidaan oo daawanaysaan waxaan joognaa ceelgaabta waxaana ay koolistee oo daryeel la'aan ah oo jiifta darbijiifka digaarka in waxna la qabto horta muhiimadda in waxna la qabto waaye. maxaa kugu kalifay inaad koola cabtid? waxaan ugu kalifay inaan koola cabno dantaan ugu kaliftay dadkeena wax ma haystaan tabareero dartooda yaa maxaa ula jeeda wax ma haystaan lacagtii iyo waxyaabihii ay naga bixi lahaayeen waxbarashadii iyo dhaqaalihii ay ma haysanin wax qabashayaan u baahanahay dadka kula midkaaba iyadoo waxba haysan baysan koola cabine maxaa idinka kugu gaara? waxaan leeyahay dadka oo koolada cabo inay iska dhaafaan oo waxaan ilaahay ugu dhaafay. maxay tahay fariinta u diraysaa dadka fariinta u diraa waxaa leeyahay dal iyo dibid intay joogaan inay daryeelaan Soomaaliya dal iyo dibid intay joogtaan waxaad isku awoodaan walaalihiin soo tarada Abdullaahi karaa intee sano koola cabaysay? wax badan baa cabaayay Allah idinsan sidii faa'iido ku qabtaa maxay tahay? wax faa'iido ku qabo male wax dhibaato leh aan ka faa'iidaamee wax daryeel daro leh aan ka faa'iidaamee waxyaabo kale aan ka faa'iido male. hadaa soo ogtay maxay isaga dan weyn? hadaa soo ogtay maxay isaga dan daray daro faa'iidadiisa aniga dantii duruufta ay keenayso waayo haddaan cabin oo isku mashquulin waxaa maskaxdayda inay tegaysaa u malaynaa aad oo faraxsanahay waa runtiisa anaga waxna daryeera ma haysano dowlad waxna daryeera ma haysano ilaahay baa daryeelka sugaynaa ka soko ummadda muslimiinta noo maqan ilaahay ka soko ummadda muslimiinta noo maqan baa daryeelka sugaynaa waxaanu kalifaynaa haddaan naga wareysanaysaa waa naga wareysanaysaa haddii halkan lagaa kaxayo ma iska daynaysaa? haddii halkan laga kaxayo waalidiinta loogu baani aan sugnaay loogu sug iiga la geeya aniga waxbarasho leysiiyo oo dowladda ay tahay waan ogolaanayaa oo waalidiinta raalli ay ka yihiin waan qaadanayaa oo waan tegayaa ma walba ay noqoto waxaan waxba ima taray waan iska dhaafi karaa dalbashiga ma walbaad iga daawanaysaan madaxtooye wasiir xildhibaan saraakiil shacab wax walba ay daawanayaan TV Twitter Facebook yada meel walba iga daawanaysaan aniga oo ah nin Soomaaliyeed. fariinta u dirayso bulshada Soomaaliyeed ku maqlaysa? bulshada Soomaaliyeed fariinta u diray waxay tahay maasha Allah inaan wax la qabto dadka aad iyo aad u waataysan oo danyarada bidii waata oo nimba maanta aanan haysan aanan awoodin walaalkay afur markii lagu dhaha soonkood aragtaa soonku walaalkay afur markii lagu dhaha taasaa kamid ah marka waxyaabo badan baan dareemi karnaayo ilaahay baa naga hay maasha Allah ilaahay baa naga hay ay tahay dhibaatooyinka ugu weyn soo wajahay inta halka ku sugantihiin inta halka ku sugan dhibaatooyinka horta qaraxyada iyo balaayada ilaahay aan ay qabtay maasha Allah alxamdulillah ilaahay ka naga galnay ilaahay baa ay qabtay laakiin waxaan ka rajaynaynaa Soomaaliya nabada oo barwaaqo wadan nabada oo ka dhashatay oo ilaahay ka dhaliyay ilaahay subxaanahu wa tacaala ka dhaliyay aan ka rajaynayaa insha Allah ay daawanaysaa marwalba ay daawanaysaa insha Allah marwalba ay daawanaysaa idinkana marwalba ay daawanaysaa Daawud xagee ka timi? waxaan ka imaaday Madiino. hooyada aabba xagee joogaan? hooyada baadiye jirtaa. baadiye xagee? Oodaale maxaa uga timi? waxaan uga imaaday aniga xamara waxaan la joogaa ciyaalkii aan la joogaa. maxaa kugu kalifay inaad ku soo gudbay? nolosha waxay ugu kalifay aniga kooliisnimada intaan ku beero iska dhaxamo magareed duruuf noocee baa ku haysa? maxay tahay caqabada ku haysato ku kalifaysa waxaa inaad ku sii dhex jirto? duruuftii haystaa waxaa ugu jirtaa naag la'aan lacag la'aan aniga dhan wasakh
noloshan haddii laga dhex saaro oo waxbarasho lagu geeyo ma ka bixi karaysaa waa ka bax karaa maxay tahay marka waxa bulshada ka codsanaysa inta waxay qabato dawladda aniga dawladda inta waxay qabataan ayaan ka codsanaya anigu waxyaalaha lagu qabanaya jecesha waxyaalaha la yaqaana waxbarashada ka mid ah mustaqbalka ka mid ah waayo tinka ka mid ah wax kasta ka mid ah ma garad adiga inta la gooyaa ka mid ah ma garad adiga guri waa jeclaan lahayd wada waa kina يا بركولي دا barwa kusoo biri baasha يا مرة بصبيري maxaa kuu kalifay دلتا يوكلفتي hooyada baa xagee jooga ولدي أبيها ولدو bashada ka waran hooyada abaa ولدي أبيها وفي عين أنا haddii fiican yihin maxaa ula noolaan weyday يا maxaa ula noolaan weyday haddii fiican yihin أنا وأنا أركي سوبري أركي أبعي تكيداني de waxaan ma iska daysa lagu soo burinayo أنا بري أمرس كده كرسي كينيا وكرتان بين رتاديني maxaa sababta isaga day karin maxay tahay يا sababta isaga day karin دع قوي سنو دربياس كده لسانو لوكاس كحاقة دارتنو فانت يا inta fariinta bulshada u diraysa فانت برشة درا انت العقل لا نصوص سالو waxaan ka codsan lahay يا عقوسل انت درنو كان لا نو بركيو jeclaan lahayd in waxbarasho lagu geeyo جلاله saaxib soo dhawow magacaaga xasan maxamed mukhtaar aa laydhahaa waxaan ku dhashay degmada afgooye maasha allah dareen oo u baahannahay muxuu yahay dareelka u baahan tahay dareel oo waalidnimo oo maasha allah wax nooga taro maxaad jeclaan lahayd in maanta lagu qabto maxay tahay dhibaato ku weyn oo ku haysa dhibaatada noo haysa waxaa tahay dad kastaba waana burbursanaa dad kastaba waana racdaysanaa dadkaas macnaha aan dhihinaa ana la qabto bas waxaa ka mid tahay dhallinyaradan darbajiifka halka ku sugan inta aad meelahan joogtaan maxaa ka mid ah caqabadaha idin soo wajaha maasha allah intaasoo oo sanooyin baan darbajiifina maasha allah waxna u haysanin oo rafaadna ku noolnahay waa la kulantaan maxay tahay dhibaatada la kulannaa walaa nin baan bursanaa askari walaa nin baan racdaysanaayo waxna ma haysano gargaar baa u baahanaa maxaa kugu kalifay inaad hawshan gashid anaka waxa waaye qof kastaba daruuf waa qabataa qof kastaba daruuf waa qabataa meel waa keensaa marka intaas maasha allah aan kusoo gabagabeynaa maasha allah inta fariinta u dirayso bulshada Soomaaliyeed bisha Soomaaliyeed maasha allah aan dhihinaa haddii oo noo gargaari karto noo gargaarto maasha allah aan dhihinaa